qofka bini aadamka ahi waxa uu u samaysto waqti si fudud buu sameeyaa ma laga yaabaa inaad tiraahdo waqtaan waaye waxay yidhaahdaan mahmaa baa jirta qolada timku ay sheegeen waxay yidhaahdaan waqtiba lama waayo ee masaladu wuxuunbay la mid tahay bay yidhaahdaan waa jalxaddii dhagaxa lagu guray bay yidhaahdaan jalxadda ma taqaaneen ashoonka kuusada haddaad dhagxan ku gurto mise dhagax bay qaadaysaa waxoogaa haddaad tiraahdo ciid kaga dabashu ma qaadaysaa dee meelihii dhagxanta u dhexdhexaysa ciiddu galaysaa waa qaadaysaa soo maaha haddaad tiraahdo laba koobo biyaa kusii dar ma qaadaysaa waxay dhahaan waqtigu waa sidaa maxaan uga jeedaa dadku inta badan dhagxantay eegaan laakiin inta kale ma eegaan bay yidhaahdaan haddaad wax walba istidhaahdo saacad sii ama 2 saacadood sii waxaa jira bay yidhahdeen waqti badanoo qofka bini aadamka ka dayacma oo wax badan ku qabsan karo ma ku xisaabtantaa 5 minutes inaanay kaa dayacmin ama rubuc saac inaanu kaa dayacmin halkay waa treenkaad raacdo jaamacadda iyo guriga inuu nus saac socdo nus saacasaad qur-aanka ku qaybi kartaa hadduu programmer tahay treenka la socotay waxay dhahaan waqti aad shaqo kale ku haysay ayaad waxan kalena ku dhex qabsan kartaa xafiiska adigoo fadhiyaad wardiyi kartaa inaad wardidaa maxay qaadanaysaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa beere minute 100 inaad tidhaahdo minimum 60 waad odhan kartaa laakiin way nala badan tahay haddii lagu yidhaahdo wardigaaga subaxi waa 100 goor oo subxaan allah iyo 100 goor oo alxamdu yaa odhan karaya soo dhanaysaa socanka maaha laakiin haddaad program leedahay waa waxa ugu fudud la qabto waa markaad guriga ka baxday ilaa intaad classka gaadhaysa awraadaadoo dhan ku filan waxa laaliya waxa wardi sunnaa ku soo arooray from the bed ilaa iyo classka intaad ku socoto 5 daqiiqo 10 daqiiqaad socotaa 10 daqiiqo wardoo dhan kuugu filan 10kaad sii socotay inaad sii wardido 10kaad soo socotay inaad soo wardido wardi isagaa kuugu filan haddaad xaafid qur-aanka ku tahay qur-aan akhrisoo dhan 10kaasaa kuugu filan xaafidka caadiga ah ee qur-aanka rubuc saac buu jiska akhriya gabadhluhuna nus saac buu akhriya idan waqtigu waxay leeyihiin sida looga faa'iidaystaa dhagxanta qura maaha idhaa yacni jalxaddan waxay tusaalaha uga dhigeen inuu program kastoo weyn oo aad samaysato ku kale ku dhex jira inaad samayn karto ku kale kusii dhex jira inaad samayn karto sida awgeed ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa kuwii habeenkii soo jeeday habeenkii dadku u seexdaa soo maaha ragga badh baa programkooda uu ka mid yahay habeenkii wax ka mida inuu soo jeedo inagu habeenkii wax ka mid aynu xagga hore ka soo jeednaayo ama aflaam sii daawanaa ama riwaayad sii eegnaa ama tv-ga sii eegnaa ama program majaajilaa sii daawanaa haddaad liidatana heesa sii daawataa iyo wax la mida okay dadka kani programkooda wuxuu ahaa habeenkii markuu cishaha tukadaan inay iska seexdaan waxay dhahdaan caafimaad ahaan xataa habeenkaa ka hurdo fiican maalintii waayo jidhku habeenkii wuxuu soo daayaa hormoono seexa ku leh maalintiina hormoono kaco shaqata ku leh waad isweydaarisay nolosha haddaad noocaa u isticmaasho hurdada maalintii o dhan waxaa ka fiican hurdada habeenkii inaad maalintii snaab yar waqti yar qaadanaysa mooyaane dadka kani waxay programaysteen habeenkii intaad soo jeedda in ka yar ubay soo jeedaan waanay ku janno galeen ilahi wuxuu leey ina almuttaqiina fi jannatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilaha yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen laakiin inta faa'iidada lana way soo jeedi jireen inta aan faa'iidada lahayna way seexan jireen dadku sheekada ku soo jeedo habeenkii halkan 8 la tukadaa haddaad ardayto saacad 2 saacadood ka badan ma wax akhridaa waa caajistaan marka 2 akhridaan soo maaha 2 saacadood marka aad akhridaa haddaad seexato waa 10 habeenimo 10 haddaad seexato imsaad soo toosi kartaa yani 4 habeenimo iska soo kacaysaa 6 saacadood isku xiga markaad hurday 4 habeenimo haddaad soo kacdo ilaa iyo salaadii subax saacad iyo dheeraad baa u dhaxeeya
quraan baad qaybi kartaa, salaad baad tukan kartaa, wax kalaad akhrisan kartaa, everything. maxaan uga dan leenahay? ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira. dadkan laynoo sheegayo waxaa laga yaabaa inaan ka salaad badnayd dad iyagoo kale, laakiin waxaa laynoogu tilmaamaya waqtigooda si ay uga faa'iidaysteen way program gareeyeen.